وإذن سلام يا إخواني أخواتي. walaalaha Soomaaliyeed waxaan rabaa wax yar inaan iska baraarujino oo ciladaha aan leenahay inaan wax iskaga sheegno. qofkii qaadanaahu ha qaato, qofkii aan maaragtay qaadanayna haddii Ilaahay unbaa kula xisaabtami doona, laakiin annaga waajibkana saaran waxaa weeyaan wax isu sheeg weeye. marka Ilaahayna wuxuu nagu ammaanay inaan nahay ummadda midda ugu khayrka badan, sababtoo ah waxaa wanaaggaana waa isku sheegnaa, waxa xumahana waa iska reebnaa. marka qofka kuu sheegaya wax wanaagsan kaana waaninaya waxyaalaha xunxun waa qofkaa naxaya oo aakhiradaada iyo adduunkaagaba u naxaya. dhibkana haysta ayaa waxaa ka mid ah in marka qof hadduu siyaasi yahay, hadduu madaxweyne yahay, hadduu wasiir yahay, wuxuu yaaba ahaado, marka aanan rabin ama aanan ku qanacsanayn waxa uu samaynayo ama wax qaladaadka uu sameeyo inaan ku xadgudubno qabiilka uu ka soo jeedo qofkaasi. qofka waa dhaleecay kartaa ciladihiisa shakhsiyadeed, siyaasadeed, hogaamineed, dhaqan, laakiin uma fiicna, waana xaaraan, waana laga wanaagsan yahay inaa qofkaas iyo qabiilkiisa aad caydid oo qabiilkii oo dhan aad ku xadgudubtid oo aflagaadaysid oo xadgudubyo oo dembiya oo aad u waaweyn ay kaa dhacaan iyo aflagaado. qof aan waxba kaa galabsan, qof laga yaabo inuu ninkan aad ka soo horjeedo, laga yaabo inuu siyaasaddiisa iyo habdhaqankiisa ka soo horjeedo, in aad qabiilkii ay ka wada dhasheen aad aflagaadayso oon waxba kuu dhimin, qabiil la mid dhintay, mid la shiiq, ninaan siyaasad mashquul ku lahayn, waa yeel caruur. waxa waaye waa dhibaato, waana fadeexo, waana arrin aad u xun oo kolley dad laga yaabo inay maangaab iska yihiin ama Ilaahay ka cabsanaynin ama aqoon kale lahayn ama si kaleba wax ugu raadsanaya ay isaga caytamaan maalin la arko oo kolley dhagahana way iska maqmaqlaan. kolley waa wax laga fiican yahay. waxaan kula tali lahaa marka ummadda Soomaaliyeed inay iska waaniyaan dhaqamadaas xunxun, inay iska waaniyaan oo wax isaga sheegaan oo arrimahaas ay iska qabtaan. qofka ku dhaqmayana qofka ugu dhow inuu la hadlo oo ka waaniyo, sababtoo waajib ayaa ka saaran, xil ayaa ka saaran, beri qiyaamadana waa la weydii doonaa. sababtoo ah waandir cashiirataka al-aqrabiin ayay ahayd aayadii. qofka umadaad wadaad tahay iyo haddaad xoogay aqli leedahay iyo haddaad qof oo waxgarada tahay, waxaa waajib kaa saaran yahay qofkaaga xun inaad waanisid. hadduu kaa qaadanayo iyo haddii uusan kaa qaadanayn, adiga shaqadaada maaha, keliya waana unbaa lagaa leeyahay. waana ayaa lagaa rabaa, keliya aan iswaanino, kolley xumaanta aan iska reebno. haddii maaragtay qof aad dembi ka gasho waa dhihi kartaa iska kii cafi, laakiin ummad dhan, qoom dhan, qabiil dhan haddaad dembi aflagaado u geysato ama awowgoodii ay kasoo askumeen oo ay ku abtirsanayeen aad afgaf u geysato, haddii laguma cafi karo oo hal qof kaama cafi karo, dadkii oo dhanna ma kala gaartay hadhow inaad aad wada cafiya. sababtoo ah magacaas ayaad caysaa iyo wixii uu maaragtay ku abtirsado dhan. marka aan iska dayno walaalayaal waxyaalaha oo aflagaadada. haddaad qofka toosinayso siyaasad ahaan u dhaliil, waxyaalaha xun uu sameeyo dadka u soo bandhig, asaga attack ama weerar haddaad rabtid,
dhaqankiisa iyo siyaasaddiisa, laakiin la iska daayo qabiilka la aflagaadaynayo oo lagu xadgudbayo ama loo nismaynayo qof hadduu qalad uu sameeyo asaga un bay ku kooban tahay. walaa taziru ayadu waxay walaa taziru waasiratun wisra ukhra, qof dembi uu galo qof kale ma qaadi karo. walaalka dembiga uu galo adiga ma qaadi karid, aabbaha dembiga uu galo adiga ma qaadi karid, wiilkaaga dembiga uu galo adiga ma qaadi karid haddaadan raalli uga ahayn. wax adiga dembi qof kala galay oo lagu qabsanayo ma jirto, si cadaaladana waa saas. marka insha allahu tacaala ilaahay ummadana hanuuniyo, dadkanaga ilaahay hanuuniyo, akhlaaqdana allah ku sugo. wax weynaa naga qaldan, akhlaaqdanadu ma fiicna, aad iyo aadaan u qaldannahay meelo badan. marka aan isugaanino wax isku sheegno. waan salaamayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.